dugsiyada al-irshaad iskuul. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kusoo dhawaada ardayay barnaamijkeennii duurista cashiraanta qaabka online-ka ahaa iyo madaariskeenii al-irshaad iyo galaasyadeenii lixaadka ahaa iyo maadadeennii at-tarbiya al-islaamiya. waxaynu ku jirnay cutubka 9aad ayaaynu ku jirnay oo ka hadlayay al-shakhsiyaat al-islaamiya. waxay noo soo dhammaaday cashirkii koowaad ee cutubka 9aad oo ka warramayay al-imaamu Maalik. maanta insha Allah ta'ala oo ay tahay bishii 26 bishii afraad 2020 waxaynu qaadan doonaa tadriibaad iyo laylis ku saabsan cashirka wax weeyaan koowaad. haddii aynu iskaga bilowno layliska qaybtiisa koowaad waxayna leedahay ajib can al-asilati al-atiyah. su'aalahan soo socda ka jawaab ardayow. su-aasha koowaad waxay leedahay mataa wulida imaamu Maalik. imaamu Maalik goorma ayaa u dhashay? waayna xageebuna ku dhashay? su-aasha labaad mataa jalasa al-imaamu Maalik lilfutya. imaamu Maalik goorma ayuu u fadhiistay lilfutya inuu markaa fatwoodo su-aalaha la soo weydiiyo oo uu ka jawaabo? markuu imise jir ahaa ayaa u fadhiistay. fatwadu waxaynu ku tilmaannay maalintii hore inay tahay sheekhu inuu fadhiisto oo markaas su-aal la weydiiyo. marka imaamu Maalik marka uu imise jir ahaa ayaa u fadhiistay inuu fatwoodo oo su-aalaha uu ka jawaabo. su-aasha saddexaad waxayna leedahay udkur 3 min mu'alifaat al-imaamu Maalik. waxaad sheegtaa ardayow 3 kamida mu'alifaadkii kutubtii markaa uu qoray al-imaamu Maalik. su-aasha afaraad maada qaala al-imaamu Maalik can al-cilmi. imaamu Maalik maxaa uu ka yidhi cilmiga? markii cilmiga uu ka warramayay maxaa markaa uu cilmiga ku tilmaamay imaamu Maalik? su-aasha shanaad mataa tuwaffiya imaamu Maalik. imisadii ayaa u dhintay imaamu Maalik? wa ayna dufina alkeebaana waxa weeyaan imaamu Maalik lagu aasay. qaybta labaad ee layliskeenu waxa weeyaan waxaa la dhigayaa insha Allahu ta'ala calaamada saxda ah iyo calaamada qaladka ah. haddii ay sax tahayna waa sixi insha Allahu ta'ala, haddii ay qalad tahayna waa qaldaysaa insha Allahu ta'ala. ta koowaad al-imaamu Maalik. imaamu Maalik huwa mu'assisu al-madhhab al-maliki. waa sheekha markaa aasaasay madhabka maalikiyada. sheekha aasaasay weeyaan imaamu Maalik. haddii ay sax tahayna insha Allah waa sixi, haddii qalad tahayna waa qaldas. talabaad kunyatu imaamu Maalik. kunyadii imaamu Maalik. kunyada waxaa la idhahdaa wixii ab amba la raaciyo ayaa kunya la idhahdaa. marka kunyadii imaamu Maalik waxaa la odhan jiray Abu Zakariya ayaa la odhan jiray. haddii sax tahayna waa sixi, haddii qalad tahayna insha Allah waa qaldaysa. ta saddexaad qaala al-imaamu Maalik. imaamu Maalik waxa uu yidhi idaa jaa'aka al-xadiid. haddii uu xadiisku kaaga yimaado can maalikin, haddii uu Maalik kaaga yimaado fashudda bihi yadayk. ku dheg xadiiska oo gacanta ku qabso. marka kelmadda amba waxa weeyaan weedha ahayd idaa jaa'aka alxadiidu can maalikin fashudda bihi yadayka. ciddii tidhi waxay ahayd markaa imaamu Maalik ayuu ahaa. haddii ay sax tahayna waa six, haddii qalad tahayna insha Allah waa qaldaysa. ta afaraad ee sax iyo qaladka al-imaamu Maalik. imaamu Maalik axadu al-a'immati al-arbaca al-fuqahaa. waa mid ka mid ah 4 markaa imaam ee fuqahada ah ee fiqiga wax weeyaan yaqaana. mid ka mid ayaa u ahaa imaamu Maalik. tashanaad allafa imaamu Maalik. imaamu Maalik waxa uu qoray
oo kamid ah kutubtii markaa uu qoray risaalad ayaa kamid ah kutubtii uu qoray risaaladaasoo markaa fi raddi cala alqadariyah qolada la yidhaahdo waxa weeyaan qadariyada uu ku radinayo. qadariyadu waa qolo waxa weeyaan qadarka daliishada oo wax kasta oo qofku sameeyo odhanaya waxa weeyaan qadar ayaa waxa weeyaan uu qofkaasi u sameeyey ayaa ay odhanayaan. si qaldanna waxa weeyaan qadarkii ayaa waxa weeyaan ay u fahmeen. marka imaamu Maalik waxa uu qoray markaa risaalad ama kitaab yar oo ku saabsan fi radd cala alqadariya radinayo qolada loo yaqaano alqadariyada. insha Allah taala shanta su'aalood iyo shanta waxa weeyaan sax iyo qaladka ayaad ka soo shaqeyn doontaan maanta hadii Ilaahay ilaado. aad iyo aad baad u salaamantiin ardayay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dugsiyada al irshaad school